Trading plan waa maxay? Trading plan sida loo dejiyo qorshe ganacsi oo wanaagsan. Walaalayaal muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo dejisto qorshe ganacsi oo wanaagsan haddii aad tahay trading. Taas marka waxay kaa kaalmeynaysaa inaad noqoto ganacsade qorshe ka leh suuqa. Sidoo kale ha mogaanin muuqaalkan ilaa dhammaadkiisa daawo. Waxaa jiri doono PDF oo aan si free ah kula wadaagi doono, kaas qof walba la soo degi doono. Marka waa maxay trading plan? Waa habka aad u maamusho trade-yada sida gelidka, bixid, maareynta khatarta iyo wixii la mid ah. Trading plan-ka marka walaalayaal saddexdaas ayuu ka kooban yahay. Wuxuu ka kooban yahay gelidka, bixid iyo maareynta khatarta. Haddii marka intaas aad qorsheysato waa arrin wanaagsan. Marka trading plan concept-iga waa maxay? Concept-iga waxaa waaye entry criteria, exit criteria iyo trade management. Walaalayaal entry criteria waxaa shuruudaha gelitaanka, shuruudaha ka bixitaanka iyo trade management oo ah qaabkii aad riskiga u manage gareyn lahayd. Marka saddexdan oo la isku daro ayaa waxaa la dhahaa trading plan. Trading plan-kaaga walaal marka waa inuu intaan ku fargareynayo. Haddii marka intaan ku fargareynayo waxa weeye plan-kaasi wuu shaqeynayaa. Sidoo kale insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa mar dhow hadda u guda geli doonaa PDF aan diyaariyey oo shakhsiyan aniga trading plan-kayga aan isticmaalo. Qof walbana sidoo kale asigana wuu isticmaali karaa oo wuu buuxin karaa xogta ku jirta insha Allahu tacaala. Wuxuuna u isticmaali karaa trading-kiisa ayuu isticmaali karaa. Marka qof walba waxaa kula talinayaa in uu la soo dego PDF-kaas aad diyaarsho. Waa free of cost, wax lacag kama rabo, wax shuruudaha kuma xirna. Kaliya waxaa ugu talagalay inaa idinku caawiyo walaalayaal si aad guul dhammaystiran u gaartaan suuqa kan ee aynu ka wada shaqaysanayno dhammaanteena. Marka la soo dego insha Allahu tacaala walaal. Waxaa marka aan u geli doonaa insha Allahu tacaala PDF-ka ayaan u geli doonaa. waxaan idin tusi doonaa qorshaha ganacsi. Marka sida u jeedid PDF-ka waa kana qorshe ganacsi oo free ah ayaa ku qoran aniga diyaarshay. Haddaad rabto inaad la soo degto walaal description-ka ayaa linkiga kala soo degi karto ku dhigi doonaa insha Allah. Marka isku day inaad buuxisid. Haddana waxaa u geli doonaa sharaxaad qaabka ee loo buuxiyo meel walba wax lagu buuxinayo si uu qorshaha u noqdo mid guul leh oo hirgala biidnillahi tacaala. walaalayaal marka qorshahan business plan-kan aniga diyaarshay. wuxuu qorshe ganacsi iyo trading plan way kala duwan yihiin marka. Haddii marka qorshaha uu yahay ganacsi kale wuu ka duwan yahay dabcan. Laakiin midkan waxaa waaye waa trading plan waaye walaal ma fahantay. Marka walaalayaal saa u jeedaan qorshaha ganacsi waa noo diyaarsan yahay dabcan. Marka waxaa idin tusi doonaa sida loo buuxiyo insha Allahu tacaala. Marka qaybta ugu horeysa waxaa waaye hadafka iyo ujeedooyinka ganacsi ee ku degsan. Waa maxay hadafka aad ka leedahay suuqan iyo ujeedooyinkaaga u ganacsanayso suuqan ugu shaqaysanayso ayaa box-kaas ku qoraysaa. waxaa ku qoran tusaale ahaan haddaad tusaale ka bixiyo waxaa ka mid ah inaad rabtid certain level of income inaad ka sameyso suuqa haddii ujeedkaaga sidaa yahay. haddii trading-ka xiise iyo jecel u qabto oo yahay hobbigaaga oo yahay ayaa ku qoraysaa wax walba oo trading-ka ku saabsan hadafkiisa halkaas ku qoraysaa. Marka halkan waxaa ku qoraysaa dhammaan hadafyada iyo ujeedooyinka aad u ganacsanayso suuqan uga shaqaysanayso ayaad halkan ku qoraysaa walaal. Marka inta aad sameydo next waxaa xiga howlaha la iga rabo toddobaadka. walaalayaal sida ka war haysaan suuqan wuxuu furan yahay 5 maalin toddobaadkii. Marka 5taas maalin waa 5 maalin aad suuqa aad trade gareynayso. qaybtan waxaa ku qoraysaa walaal 5taas maalin wixii aad qaban lahayd. shaqooyinka aad qaban lahayd howl maalmeedka ku yaala shaqooyinka laga rabo inaad qabatid. Waa maxay shaqooyinka laga rabo inaad qabato 5taas maalin? Shaqadaada as a trader waxaa waaye waa in aad ku qorshaysan yihiin ama aad u sii diyaar garowdo lacagaha aad geli doonto. Marka laba column waaye dabcan. qaybna waxaa ku qoran taariikhda, qaybna shaqada. taariikhda waxaa ku qoraysaa maalinta tusaale ahaan Isniinta oo kale taariikhdeeda ayaa halkaa ku qoranaysaa.
shaqadana goobtaas meeshaasna waxaa ku buuxinaysaa ayadana lacagta aad rabto inaad gesho ama beerka aad rabto inaad ka trade garaysid maalintaas. marka kuwa kale oo dhanna maaragta waa la mid insha allahu tacaala. shanta maalin sidaas ay u buuxinaysaa. next qaybta kale ay u gudbeynaa. qaybtan walaalayaal waxaa waaye falanqeynta ADAFK. waa maxay ADAFK? maxaa laga soo gaabshay ADAFK? walaal waxaa laga soo gaabshay awoodaheega, daciifnimadeeda, fursadaheega iyo khatarta. yacni intaas oo lasoo gaabsho waaye. marka qaybta ugu horeysa columnkaas waxaa ku qoraysaa yacni awoodahaaga, waxyaabaha ku wanaagsan tahay ase trader ahaan. ma jiraan waxyaaba gooniha ku wanaagsan tahay, sida haddaa ku wanaagsan tahay falanqeynta suuqa oo kale, haddii aad ku wanaagsan tahay taxliilin dhaqaale, haddii aad ku wanaagsan tahay istiraatiijiyad gooni, haddaa ku wanaagsan tahay risk management, haddaa ku wanaagsan tahay market sentiment, wax allaala waxay ku wanaagsan tahay halkaas qoraysaa. ama maaragtay waxyaabaha adiga awoodahaaga ah. next daciiftinimadaada, waxyaabaha ku liidato. tusaale ahaan waxaan ku liitaa stop losska hilmaamaa, sidoo kale risk managementiga si fiican uma garanayo. yacni qodobadaas iyo qodobo kale adiga kuu gaara halkaas qoraysaa. waxaa xiga fursadaheega, fursadaha markaas kuu muuqda ay higsanayso. tusaale ahaan haddii maaragtay fursadaha suuqa kaaga muuqda lacaga gaar hadday jiraan maaragtay leevelo oo priceka maaragtay gooni ah oo hadduu gaaro oo fursadda u aragtid oo kale ayay ku saabsan tahay. sidoo kalena khataraha aad waajihi karto. tusaale ahaan in uu kugu soo bixi karo dhacdo wareed saameyn leh oo weyn. sidoo kale xilliyada fasax oo kale dhammaan waa khataro aad waajihi karto in maaragtay iyo riskiga. marka halkaas ku faahfaahinaysaa shaaca ka qaadid. marka walaalayaal qodobadan waa 10 qodob ah ka duuleysa. marka 10 qodob waa inay base ku ahaadaan, waa inay asaas ku ahaadaan. waxaa la rabaa 10 qodob in ay saldhig ay ku ahaadaan oo aad ka duushid mar walba insha allahu tacaala. waa maxay marka waxyaabaha shaaca ka qaadayso? waxyaabaha shaaca ka qaadayso waxaa waa khatar ka badan intaan ugu talagalay heshiiskiiba ma geli doono. 2 had iyo jeer waxaan ku xiran doonaa stop loss. 3 stop losska waxba kama bedeli doona xataa haddii uu igaga dhici rabo. signal walba oo u muuqda inuu wanaagsan yahay iskama qaadan doono. ma geli doono heshiis aan waafaqsanayn xeerarka istiraatiijiyadeeda. daily targetkayga ayaan ku dheganaan doonaa. wax kasta oo dhaca haddii aan khasaaro intaan ugu talagalay suuqa kama aargudan doono. haddii aan xaqiijiyo hadafkayga faa'iido suuqa kuma sii shaqadaami doono. waxaan marka hore diiradda saari doonaa badbaadinta raasumaalkayga. istiraatiijiyadeeda backtesting ayaan ku sameyn doonaa si aan u qiimeeyo waxtarkeeda. marka qodobadaas marka hubtid ayaa waxaad leedahay markaa saxiixaaga ayaa halkan ku qoraysaa iyo taariikhda marka go-aankan aad qaadatay ayaa ku qoraysaa. sidaasaa marka aan ku buuxinaysaa marka wax walba aa hubtid. marka waa inuu balaankaaga maaragtay uu ku bees garaysnaadaa sidaan. marka next qaybta kale oo muhiimka ah waxaa waaye trading balaankii. waa trading balaankii naftirkiisa. hadda waxaan kasoo hadalnay waxyaabaha asaasiga u ah balaankaaga. next waxaa nooceeda trading balaankii. waxaa hoos imaanaya marka qodobo badan. waxaa ka mid ah magaca istiraatiijiyadda. halkan waxaad qoraysaa magaca istiraatiijiyadda columnka ugu horeeya. waxaad ku qoraysaa istiraatiijiyadaada magaceeda maaragtay aad isticmaasho, hadday tahay price action, hadday tahay market structure, hadday tahay demand and supply, whatever. halkaasaa ku qoraysaa. next waxaa waaye beerka ugu badan ee aan diiradda saarayo. halkaasaa ku qoraysaa. lama rabo marka qaladka inta ugu badan traderska ay sameeyaan waxaa ka mid ah beer walba ayay ka trade gareeyaan. taasna kuma wanaagsano. qorshahaagana wuu ku fashilmayaa sidaas. waxaa wanaagsan beer cayiman inaad ka shaqaysatid. tusaale ahaan dahabka ama lacaga euro USD oo kale ama JPY. adiga ugu badnaan 3 lacagood ama 3 beer
ama 4 bir inaa mar walba inta badan aad ka shaqaystaa roon. Halkaasaa ku dhigaysaa time frame-ka aad ka talagarayso ma 30 minute-ka ama 1 hour-ka ama weekly-ga ama daily-ga yani ma monthly-ga kolley halkaasaa ku qoraysaa. Indicator-ka aad isticmaasho ayaa qaybtan kale ayadana aad ku qoraysaa indicator-kaas aad isticmaasho. Sidoo kale confirmation-ka dhan maxaa ku ah ayadana waa halkaana ku qoraysaa. tusaale ahaan dadka qaar confirmation-ka dhan waxa u ah shumacyada bixiyeen oo suuqa maaragtay wajahada bedel raba sida doji candle oo kale iyo harami oo kale iyo kuwaas macnaha haddii ay confirmation ku yihiin wax allaala yani tusaale leh ka wadaa waxaa confirmation ku ahaa karo wax adiga kuu gooni ah halkaas ayaa ku qoraysaa ma fahante. Marka walaal intaas ayaa laga rabaa trading balaanka marka balaankii gudihiisa waaye marka intaas waa in uu soo koobaa balaankaaga ma fahante. Marka halkan ayaa waxaad ku qoraysaa dhammaan wax allaala wixii maaragtay balaankaaga hoos imaan lahaa haddii ay ahaan lahayd qorshahaaga ganacsi waa inuu maaragtay qayb ay ka ahaataa xeerarka istiraatiijiyadaada. Istiraatiijiyadaada lama rabo inay noqoto hadal afka baarkiisa ah lama rabo inay noqoto waa in ay jirto xeerar ay ku dhisan tahay istiraatiijiyadaada. Marka xeerarkaas la buuxiyana waa in aad suuqii markaas aad sida ku gasho. Xeerarka marka way fara badnaan karaan laakiin waxaa laga rabaa inaad halkan ku buuxisid xeerarka sida macnaha shuruudaha gelidda oo kale maxaa suuqa ku gashaa maxaa maaragtay xeer noocee ah kaaga yaalo inaad suuqa gasho. tusaale ahaan markuu gaaro price-ka level hebel ama markay lacagta ay muujiso ishaarada noocaasa ayaa suuqa galayaa. Okay waa ayadana xeerka gelidda waa tusaale ahaan shuruudaha ka bixidda oo kale suuqa markuu gaaro level hebel ayaa rabaa inaad iskaga baxo ama intaasoo bib oo stop loss markuu suuqa gaaro aa rabaa inaad iskaga baxo. gelidda iyo ka bixitaanka waa muhiim waaye trading. Marka riskiga ugu badan heshiiskiiba percentage of risk per trade aa lahaa tradekiiba imise ayaa riski gelinaysaa boqoley ahaan. waxaa kula talinaya inaad riski gelin wax ka badan 1% per trade tradekiiba inaa 1% aadan gelin. Okay wadarta riskiga heshiisyada yacni dhammaan heshiisyada kuu furan riskiga kugu hayaan oo boqolkiiba ah. tusaale ahaan 3 trade kuu furan waa percentage of riskooda waa meeqa riskiga kugu hayaan boqolkiiba meeqa waa. haddaad rabtid inaad faahfaahin ka heshid waxaan kula talinayaa inaad buuggaas maamulka maareynta halista aan aad ugu faahfaahiyo cutub dhan kaas ayaa ka heli kartaan xogta dhammaystiran. Okay risk reward ratio ugu yaraa isticmaalayso ayadana halkaasaa ku qoraysaa saamiga khatarta abaalmarinta la dhahaa. marka walaal risk reward ratio ugu yar waa inuu noqdaa 1-2 ama 1-3 waa inuu noqdaa si guud si ay markaa kaaga kaalmayso inaad suuqa maaragtay muddo dheer aad kusii jirto. rule of thumb waxaa waa risk reward ratio in la isticmaalo 1-2 ama 1-3 si maaragtay halista suurtagalka ah ay maaragtay uga badnaato yacni faa'iidada suurtagalka ah. marka taas waaye waxaa kugu xigo siyaasadaha fasaxa yacni waa maxay siyaasadaha kuu maaragtay kuu degsan markii uu suuqa fasax lagu jiro ama xiran yahay oo kale ma fursado kale ay sii raadinaysaa dabcan ma suuqa ka nasanaysaa ma howlo kala qabsanaysaa ma backtesting ayaa sameynaysaa kolley siyaasadaha ku degsan ayaa halkan ku qoraysaa. marka siyaasadaha ku degsan ayaa halkan maaragtay ku qoraysaa insha allahu tacaala. marka intaan ayaa suubinaysaa xeerarka istiraatiijiyadaada waa inay ka koobnaataa intaan oo qodob si maarkino u noqoto mid yacni sida hore usoo sheegay aysan u noqon hadal aysan u noqon ay u noqoto mid xeerar ku dhisan ya. marka xeerar ku dhisan waa inay ahaataa. marka waxaa laga rabaa inaad intaan aad buuxisid halkaan aan ku qoraysaa yacni wax walba oo lagaa rabo insha allahu tacaala.
marka waa kow shuruudaha gelidda, shuruudaha maaragtay ka bixidda, riskiga ugu badan heshiiskiiba, wadarta riskiga heshiisyada risk to reward ratio, iyo siyaasadaha fasaxa siyaasadaha kaaga degsan fasaxa waa inay intaas ay noqdaan. marka intaas hubtid marka waxaa u gudbaynaa qaybta xigta. qaybtan waxaa waaye hanaanka hubinta istiraatiijiyadda. hanaanka hubinta istiraatiijiyadda waxaa waaye waa back testing waxa loo yaqaano ama back testing inaa istiraatiijiyadaada aa hubisid waxtarkeeda inaa hubisid sidee ku hubi kartaa, maxaa isticmaalaysaa, goormee hubinaysaa, waxaasoo dhan ayaa markaa halkan qorshahaaga ku faahfaahinaysa. kow softwareka aad isticmaalayso, softwareka aad u isticmaali rabto backtestingka magaciisa halkaa ku qoraysaa. ma mt4 oo desktop ku shaqeeya wuxuu leeyahay qayb macnaha backtesting qofku uu samayn karo reportyada maaragtay oo galay uu samayn karo. sidoo kale waqtiga aad backtestingka samaynaysid macnaha maalin walba ayaa samaynaysaa, ma isbuuciiba mar ayaa samaynaysaa intuu suuqa xiran yahay, ma bishiiba mar ayaa backtesting ku samaynaysaa, mase sanadkiiba mar. halkaas ay ku qoraysaa waqtiga aad backtestingka aad samaynaysid iyo xilliyada macnaha aad samaynaysid. next waxaa waaye waxaa noo xiga goormee isticmaalaa istiraatiijiyadda. goormee istiraatiijiyadan aad suuqa ku galaysaa. tusaale ahaan waxaa ka mid ah markii ay buuxisho dhammaan xeerarkeega, markii ay waafaqdo ayaa suuqa galaya. that is maaragtay waxaa waaye waa xilliga maaragtay istiraatiijiyada aad isticmaalayso. istiraatiijiyada mar walba mayaa isticmaalaysaa? maya, waa xilliyo gaar ah. waa goormee? waa markii ay buuxiso dhammaan shuruudaha iyo xeerarka istiraatiijiyada ay ku dhisan tahay. marka intaas halkaas ay ku qoraysaa. intaasuu ku egyahay muuqaalkan. haddii aad horay maaragtay subscribe oo kugu saarnaa channelka like saar. haddii aan ugu cusubtaan lagu soo biir si aad u heshid xogo intaan ka faahfaahsan oo la xiriira suuqa si bilaashana aad u heshid insha allah. waa mahadsantihiin.